Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaantiin meel waliba joogtaan ku soo dhawaada muuqaalka maanta oo aan idiin soo gudbinaya anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Haweeney 24 sano jir ah oo ah taliyaha saldhigga hawada sare ayaa qabsatay baraha bulshada Shiinaha iyadoo lagu amaanay doorkeeda howlgalka dayaxa lagu tagay ee Shiinaha ee loogu magac daray Chang'e 5. kasoo koobin ay tahay taliyaha ugu da'da Zhou Chengyu waxaa loo yaqaanaa walaal weyn taasoo ah calaamad xushmad loogu muujinayo iyada. howlgalkan Chang'e 5 waa midkii saddexaad ee Shiinuhu si guul leh u tago dayaxa muddo 7 sano ah gudahood. Zhou waxay qaabilsaneyd hanaanka isku xirka gantaalka taasoo lagu sheegay door muhiim ah. gabadhan da'da yar ee carbixiyeenka ayaa qabsatay barta bulshada Shiinaha ku wada xiriirto ee loo yaqaano Weibo tan iyo markii ay warbaahinta Shiinaha ay soo bandhigeen inay ka mid ahayd haweenkii ku lugta lahaa howlgalkii guuleystay ee dayaxa lagu tagay ee Chang'e 5 23 November ee sanadii 2020. balse intaan u gudagelin barnaamijkeena like sar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, share leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channel-keena, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. sheekadeeda ayaa xiiso yeelatay kadib markii la eegay da'deeda. dadka isticmaala baraha bulshada ayaa taas ku ammaanay iyagoo sheegay inay sumcad u tahay dalkooda. dadka qaar ayaa ku kaftamay sida nolosha ay uga dhacsan yihiin iyagoo isbarbar dhigayaan haweenaydan. arrinta la xiriirta inay ka soo jeedo gobolka Guizhou saameyn weyn kuma yeelan sida laga soo xigtay barta duweedka Guizhou-net. sidoo kalena gabadhan oo lagu magacaabo Zhou ayaa diiday codsiyo badan oo wareysyo lagula yeelan lahaa iyadoo sheegtay inaysan doonayn in caanimadeeda ay ka hor istaagto shaqadeeda. ujeeddada barnaamijka Chang'e 5 wuxuu ahaa in dhagaxan iyo ciid laga soo ururiyo dayaxa si saynisyahanada looga caawiyo inay wax badan ka bartaan qaabka ay bisha u samaysan tahay. haddii uu guulaysto barnaamijkan wuxuu noqon doonaa howlgalkii ugu horreeyay ee ka badan 40 sano ciid iyo dhagaxan laga soo qaaday dayaxa lana keeno dhulka, wuxuuna Shiinaha ka dhigi doonaa dalkii saddexaad ee sidaas sameeyey marka laga soo tago wadamada kale ah Mareykanka iyo Midowga Soofiyeed. howlgalkan wuxuu qayb ka yahay dadaalka uu Shiinaha ugu jiro inuu noqdo quwadda dhanka hawada ah, iyadoo madaxweyne Xi Jinping uu ugu yeeray in howlgalkaas uu yahay tallaabo dhanka horumarka loo qaaday. gudaha Shiinaha tagitaanka dayaxa waxaa loo arkaa hab uu dalkaas ku soo bandhigayo tiknoolajiyadiisa sii kobcayso iyo sidoo kale inuu muujiyo quwaddiisa inay ka mid tahay kuwa caalamka. Professor Oya Sayuan oo ka mid ah saynisyahanada ugu waaweyn dalkaas ayaa sanadii 2006 u sheegay wargeyska Shiinaha laga leeyahay ee loo yaqaano People's Day tagitaanka dayaxa wuxuu sawir ka bixinayaa quwadda dalka. sanadkii 2019 Shiinaha ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee ku guuleysta in dayax gacmeed aan lala socon uu u diro dhanka fog ee dayaxa. 10 sano ee soo socda wuxuu Shiinaha qorsheynayaa inuu xarin baaritaan ka dhiso dayaxa isla markaana uu dad u diro meeraha Mars. howlgalka Shiinaha ee dayaxa wuxuu ku caanbaxay haween awood leh oo qayb ka ahaa howlgalkaas. sidaas darteedna sawirka Zhou Chengyu oo 24 jir ah ayaa lagu hadalhayay dhammaan baraha bulshada ee Shiinaha ku xiriiraan, waxaana laga bixinayay faallooyin ku aadan sida ay u tahay sarkaal safka hore kaga jira howlgalka hawada iyo inay tahay walaal weyn oo ay dadka Shiinaha ee da'da yar ku dayan karaan. dhanka kale Shiinaha ayaa si weyn isugu dayayay inuu muujiyo haweenka awoodda leh ee dalkaas. hoggaanka sare ee dalkaas waxaa ka buuxa rag, balse bishii November ee sanadii 2020 wargeyska Global Times ayaa ka codsaday dadka inay faallo ka dhiibtaan horumarka sanadkaas ay gaareen haweenka. balse dad badan oo Shiinaha ku nool waxay dareemayaan in doorka haweenka ee dalkaasi uu weli saaran yahay, ayna ka qatan yihiin meelo badan oo ay ka mid yihiin sida warshadaha. arrintan waxaa aad looga hadlay
bishii Sebtembar ee sanadii 2020 markaas oo riwaayad ka baxday telefishin looga hadlayay doorka haweenka ee la dagaalanka cudurka COVID-19 ee waddanka Shiinaha ayaa loo arkayay inay ahayd mid takoor dhanka jinsiga ah iyadoo ay jirtay in haweeney 24 sano jir ah ay ka mid ahayd warbixinadii dusha sare ee dayaxa tagay sidoo kalena ka mid ah haweenka da'da yar ee horumarka gaarsiiyay waddanka Shiinaha waxaa inta inoo weeg warbixinteennii oo ay idin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macallim Alto haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan mahadsanid